salaamullaahi calaykum dhammaantiin soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada webinaarkeennii asbuuclaha ahaa ee aan alaaba markan soo galno isla fiirino fursadaha suuqa ka jira asbuucaas siduu egyahay tradeyada asbuucaas aan qaadan karno natiijada iyo sidii ay u dhaqaaqeen tradeyadii hore inoogu furnaa sidoo kale webinaaradeenan markaan soo galno waxaan isla fiirinaa su-aalaha ardaydu ay qabaan marmar si life ayaan ardayda uga jawaabnaa marmarna waxaa la yiraahdo waxaan codkan u furnaayo ardada ayaa hadasho su-aasha soo dhigata runtii 2020 dhammaadkeedii markaan joojiyey hayaan academy aniga 4 bilood ilaa 5 bilood oo fasaxan galay so bishii 10aad 11aad 12aad 1aad 4 bilood fasax baan ahaa 12aad dhammaadkeedii ayaa barnaamijkan aniga la iisoo bandhigay in nimanka la yiraahdo FX Primus ayaa barnaamijkan smart investment oo dhan iskala horta inaa fahamtaan baan rabaa qodobkaas horena wax badan baa idinku sharaxay haddaad ogeyn like oo kugu celinaya ujeedkoodu waxa weeye marka ay u sameeyeen barnaamijkan waxay og yihiin in database-kooda ay ku xiran tahay Soomaali aad u fara badan ama hayaan academy ha ka yimaadaan ama meelo kale ha ka yimaadaan sababtoo smart investment academy hayaan academy dadka ku jira kaliya kuma jiraan Soomaalida kale oo akademiyadaha kale ku jira dhan baa ku jirta oo fursad u furan tahay waxay aniga ii soo bandhigeen marka in Soomaalidu marka ay lacag faa'iido kaliya uu brokerku lacag faa'iidi karo of course haddii khasaarana brokerku uu faa'iidaya laakiin haddii khasaaraan waa hal mar brokerku wuxuu ka faa'iidaa commission haddaad hore ogeyn hadda ogo commissionka qof kasta saaran ayuu ka faa'iidaa marka anu USD hadda furo buy ku dhufto that moment aan buy ku dhufto broker commission buu leeyahay of course spreadna wuu jira so haddaan buygaas ku dhufto oo halkaas buy account-kaygu uu gubto halka commission buu ka faa'iidaya laakiin buygaas haddaan ku guuleysto lacagteedii weli way joogtaa haddana buy kalaan gelaya haddana buy kalaan gelaya haddana sell kalaan gelaya haddana mid kalaan gelaya haddana mid kalaan gelaya maanta oo dhan waa soo noqnoqonaya trade aan furaya mar kasta trade furti brokerku lacag ku kaaliya laakiin dadkii haddaysan aqoon lahayn ama aysan haysan mentor iyo qof ay ku tiirsanaadaan oo tradeyadii ka caawiya marka buygiisii ama sellkiisii u horreeyay kale wuu khasaaraya qofkii brokerkiina wuu isxiraya oo customers iyo clients wuu waayaya aragtida aniga markay ii soo bandhigeen waxay ogaayeen markii hayaan academy jirtay inay haysteen customerka ugu fiican balse markii hayaan academy istaagtay inuu suuqoodii soo yara daciifay dhinaca Soomaalida of course brokerka malaayiin kale qof ku xiran sidaas darteed ayaa horta barnaamijkan ku yimi aniga hal codsi baan ku xiray horena waa idinku celceliyay hadalkan waxaan ku xiray inaan aniga waqtigeyga aan Soomaalida ka iibinayn oo aan iyaga lacag ka qaadin qofka shacabka maxay tahay what's the catch muxuu yahay waxa ka damacsantiin waxan nothing of course waxay naga saacidaan website-ka wax walba ku saabsan maamulida website-ka dhalinyarada idin shaqeysa iyo wixii u baahan yihiin oo dhan wax kasta oo facility in website-ka la dhiso iyaga ayaa ka mas'uul oo fangareeya laakiin qof kasta oo smart investment qayb ka ah wax lacag lagama qaado that was the deal aan wada haysanay welina wuu jira barnaamijka February baan bilownay February March April May June July August waa 7 bilood 7 bilood oo la soo dhaafay habeen iyo maalin halkan aan ku fadhiyay Zoom baan ku soo diray waxaan ku soo diray webinar signal baan kula wadaagay trade idea kula wadaagay setup baan kula wadaagay khaladaadkiina saxayay team dhan oo waxaan idin diyaariyay wixii khaldama idan la saxa of course waxa jira marka waxyaalaha anaga awoodeena aan ahay oo bureaucracy iyo ku saabsan maamul sida qofka cusub oo smart investment soo galaya dariiqa uu soo marayo aniga iguma saabsana billahi calaykum ina fahamtaan baan rabaa qofku marka uu smart investment yimaado oo uu chat-ka ka soo hadlo maaha macallimu qofka lala hadlay ina fahamtaan baan rabaa waxa la hadlayaa dhalinyarada meesha ka shaqeysa kadib dhalinyaradaas iyagu awood u malina account-kaaga sameeyaan smart investment haddii awoodkaaga u lahaan lahaayeen 60 kun hal mar baa la idin sameyn lahaa muxuu sameynayaa barnaamijka dhan yaas kale FX Primus ninka dhalinyarada wuxuu sameynayaa account-kaagii email buu ku weydiinayaa oo aragtay Soomaa emailka uu ku weydiiyo wuxuu u gudbinayaa smart investment wuxuu u gudbinayaa actually FX Primus oo asbuucaas haddii 5 qof ay soo hadasho ama maalinta haddii 5 qof soo hadasho oo tiraahdo hebel baa la yiraahdaa Soomaali baan ahay FX Primus baan isticmaalaa cadeynteedii waa kana emailkayga waa kana macluumaadka bilaashka ee macalinku bixin inaan qayb ka noqdaan raba aydid ama Isxaaq ama ninka leeyahay Ibrahim wuxuu qaadayaa emailkii wuxuu u dirayaa FX Primus qaybta nala shaqeysa oo website-ka mas'uulka FX Primus maxay sameynaysaa waxay u diraysaa qaybta akoonada waxay soo hubinaysaa qofka inuu runtiis yahay oo FX Primus account ku leeyahay lacagna ay ugu jirto markay soo hubiso waqtigooda qaataan sometimes same day bay ku soo jawaabayaan sometimes 2 days kadib bay ku soo jawaabayaan sometimes 3 days bay soo jawaabayaan
sometimes waxa laga yaabaa 3 hours gudahood inay kusoo jawaabaan waxa adiga gacanteeda ku jira ma iyaga iyo si u shaqeynayaan bay ku xirantay so muxuu samaynayaa qoladii qofka akoon bay usoo furayaan akoonka ani ma furi karayaa aydiid ma furi karayaa iyaga usoo furaya akoonka xogta ay ku furayaanna waa xogtii qofka uu FX Primus ku dhex lahaa emailkiisa iyo wixiisa akoonadii oo furan oo isma investment qofkii laga dhexeli karaba already bay soo celinayaan qofkii dhalinyarada ah ee meesha fadhiyo soo celinaya kadib qofkaas baa wuxuu raadinayaa qofkii email buu dirayaa ama chat ugu jawaabaya barnaamijkan horta saas u shaqeeya Discord kan aad arkaysaan waa extra waa waxaan anigu ku daray qayb kama aha barnaamijka Smart Investment Discord kan waxaan ogaa Soomaali inaan nahay in Ingiriis badan aynu aqoon qaybteen of course dad badan Ingiriis yaqaanaa jira laakiin intana badan English luqadeena koowaad maaha facilitieska computerka iyo hagaajinta iyo in email la isku dubarido wax la haabisto way nagu adagta dad wax raadin yaqaanana uma badnin so waxaan ugu talagalnay in loo fududeeyo loo jilciyo ilaa qof walba ay u fududaato sidii barnaamijka qayb uga noqon lahaa dan Discord kan anaa sameeyay anaa ugu talagalay inaan idinkeeda ku caawiyo anaa ugu talagalay wixii su'aalaha qabtaan inaan sameeyo haddaba aniga hadaf baan leeyahay FX Primus hadaf bay leedahay qof walbana hadaf buu leeyahay anuu hadafka aan leeyahay marka waxa weeye in cilmiga aan hayo aad igala wareegtaan arrintaasna over waan idin proof karay anigu 4 sano iyo wax la jira ayaan hadda trader ah runta markaan idin sheego wax kasta waa soo arkay every qaab oo suuqan looga shaqeysto waa soo arkay every strategy magac rabta hay'ad waa soo qiimay every system wuxuu rabaa ahaada waa soo arkay so believe me markaa ku dhaho idageyso because I know what I'm talking about believe me markaa ku dhaho waxa magaalada yaala waa soo arkay waxa Soomaalida lagu wareerinayo waa soo arkay waxaan arkay boqolaal kun kumanaan kun oo dollar wax lagu khasaaranayo waa soo arkay lacag waa ku khasaaray suuqan lacag badanna waa ka sameeyay suuqan idinkoo dhan waxaa ogeydeen in hal maalin 100 kun oo dollar sameeyay dhowr jeer oo ka dambaysa 100 kun oo dollar ka badan waa sameeyay hal maalin laakiin muhiim ma aha inaan lacagta aan sameeyay iyo lacagta aan sameeyay waxa inaan kula share gareeyo ee waxa muhiim ah inaan ku tuso maxaa shaqeeya iyo maxaa shaqeey intiina itqaana aniga waxaan ka dhowrsadaa ama iska ilaaliyaa ina qof kale wax ka sheego xataa hadaan qofkaas ku faraxsanayn soo u shaqeeyo iyo qaabkiisa iyo wuxuu u dhaqmo 4 sano baan internet ku dhex jiraa iyo bar wili ma aragteen anoo qof wax ka sheegay wili ma aragteen anoo qof magaciisa xusaya wili ma aragteen anoo koox ama shirkad ama organization ama Soomaali aada ama qolo kale aade dhaleeceynaya ama ceebeynaya ama maagaya ama dhibaato u geysanaya no laakiin on the contrary magacayga waa lagu dadbadsada waxaa soo yeelada dad macalimiin baa saanay ana fiican darteed wax ku raadinaya waxaa soo yeelada macalimiin baa xuna ana fiican wax ku raadinaya iyaga ilaahood baa u taala aniga hadii gacanteeda ku jirto cafis bay iga yihiin qof kasta oo wax iga sheega magac uu rabaha lahaada cafis buu agteeda ka yahay magac uu rabaha lahaada gabara aado wiila aado shirkada aado shakhsi aado I have no grudge because hadda koobkaas oo biyo ka buuxaan haddaan saa u hayo hal saacada hayo caadi bas ka ahanaya 2 saacada hayo maybe gacantii inay xanuunto 5 saacada koobka hayo gacanteeda maxaa ku dhacaya paralysis bay noqonaysaa lagada dhulka iska dhigi karo ina qof xumaan u haysid ama ina qof negative u haysid waa adoo koobkaas kor u hayo kala maanta qofkii ma dhib ku haysaa no aday dhib ku haysaa karaafi biya soo qabso ama diimad saxan biya saa kor ugu hay cabaar 3 saac ka badan marka kor u haysid gacantaada maxaa ku dhacaya neerfayaasho dhan baa ku istaagaya ku qalalaya ina qof grudge ama xumaan ama xiqdi ama xasidnimo ama wax xumaan u haysidna saasay ka dhiganta waxa ogtihiin dhamaantiin macluumaadka aan idin la wadaagayo inuu wax aad u qaaliya yahay waxaad ogtihiin macluumaadka aan idin siinayo koorsadan aan idin barayo oo runtii bilaash hadee iska daa Smart Investment YouTube ka dhex taala hadda video on YouTube ka daawanaysid everything oo Smart Investment dhex yaala isagoo ka kooban oo ka nidaamsan oo ka qurux badan oo hal video YouTube ku dhex yaala just so fiir kali dad baa dadka dhaariya markay waxyaalaha la wadaagayaan wallahi dheenaadan cidna u sheegayn billahi dheenaadan cidna la wadaagay dad baa kumanaan kun dollar dadka qaada laakiin aniga kama qaado why waa isweydiinaysan qaybtii why macluumaadka ilaa heerkan qaaliga macalin bilaash ugu bixinaysa because I believe in abundance waxa la yiraahdaa in waxa aa haysatid aaminsanta inay naga badan yihiin waxa jira 2 aragtiyood oo iska hor imaanaya
oo la yiraahdo abundance iyo scarcity. Scarcity waxa weeye inaan iraahdo biyaha yarka ee koobkan ku jira dee anigiiba igu yar yihiin, anigiiba way igu yar yihiin oo haddaa adiga ku siiyo aniga maxaa ii soo haraya. abundance-na waxaa la yidhahdaa war biyaha koobkan ku jira aniga adiga waa naga badan yihiin, xataa qof saddexaad noo yimaadeen keen oo isla cabaynaa, haddii naga dhammaadaanna mid kale helayna. That's abundance. inaan istaraatiijiyadeeda kula wadaago, cilmigaayo kula wadaago, waqtigiiyo kula wadaago, energy-ga kula wadaago, waxaan aaminsanahay abundance wax la yidhahdo. waxaad ogeydeen 2 buug baan qoray, 2 buug ba iyagoo free aan bixiyey. qof kale Soomaaliya buug forex ku saabsan intuu qoray free ku bixiyay ma garanaysan ayaantii hore. No. Why? Because markaan buugga bixiyo albaabo kale waaweyn buu Ilaahay ii furaya. markaan Adnaan iyo Axmed iyo Amiira iyo Fartuun iyo Cabdullaahi markaan cilmi la wadaago, cilmi kale iga maqan buu Ilaahay siinaya. markaan khayr iyo wanaag qof la wadaago, khayr iyo wanaag kale hadda aan haysan ama hadda gacantayda is gaari karin baa helaya. That's called abundance. qof walba oo dunida meel gaaran abundance buu ku socdaa. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam abundance buu ku socdaa. xadiis dhan baa jiro ahaa cuntada hal qof ku filan yahay deeqdaa 2 qof, cuntada 2 qof ku filan yahay deeqdaa 3 qof. maxaa lagu barayaa, lagu tababarayaa maskixiyan ba waxa laga dhaadhicinayaa inaad iska dhaadhicin waxa la yiraahdo scarcity-ga iyo way nagu yartahay inaad iska dhaadhicin baa lagu tusay ee lagu tuso abundance-ga iyo way naga badanta. waxa kale inta dheer macluumaadka aan idin siiyey ardaydii baratay baa dadka barta maanta. qayb baa already website-yo furtay maqana internet-ka ku aragteen oo la soo diraa maalin kasta macallin oo fiiri ninkan waxaagii buu hayaa oo cilmigaagii buu dad baray. who cares? habaro hadduu caqligeedii iyo cilmigeedii iyo mas'uuliyadeedii qaadi karo oo wixii aniga iga bartay uu mad bari karo xataa user credit isiin. waxaan dhammaanteen wada ognahay smart methodology iyo waxa la yiraahdo nidaamkan aan ku shaqeynay inaan anigu aan af Soomaali idinku sharaxay. qof aniga iga horreeyay af Soomaali ku sharaxayna usan jirin. supply and demand qof aniga horreeyay af Soomaali ku sharaxay usan jirin. liquidity break iyo manipulation iyo whole system of work of qof aniga horreeyay sharaxayna usan jirin. laakiin maanta internet waxa ku saleysaa kumanaan kun oo qof oo Soomaali oo sharaxaysa. That was my goal, believe it or not. hadafkayga aniga taas u ahaa. waxaan doonayay inaan legacy reebo, waxaan doonayay inaan sumcad reebo. wala tagay adduunka waa laga tagay. kuwa naga horreeyo Axmed Jaamac yarka forex soo bilaabay waa dhintay Soomaaliya. Axmed Jaamac yarka Soomaaliga iyo Ingiriiska deganaayo first Zoom aan galno af Soomaaliya yarka noo galay buu ah. hatta coronavirus ku dhintay 2020. maanta legacy-giisii way waxaan ka hadlaynaa. Ilaahay u naxariistaan leenahay. how dambi dhaaf. He was a great guy. IML buu ka tirsanaan jiray, German buu ahaan jiray. inta IML shaqolo Hindiyo dambo gadaal looga timiyo buuq badneed intiisa noo iman ka hor 2019 ninka IML loo keenay buu 18. Allah u naxariisto wuu dhintay. You're gonna die too. adigana waa dhimanaysaa. so u dhaqad maalin kasta inay maalintaada u dambeysay tahay haddaa ogtahay inaad dhimanaysa. wanaag ka tag, khayr ka tag, cilmi ka tag, sharaf ka tag. That's called legacy. xurmad ka tag. soo maaha. laakiin haddiin anu adduunka lacagtan soo galay forex trader baa khatar baa ahaniyo wacdigii waxa masaajka laad. no. waa wax loo wada socdo. haddaba macluumaadka anigu maxaan firiga uga dhigayaa? maxaan FX Experience uga codsanay shirkadan free ka dhigto? maxaan weli FX Experience dil soo dhaafay isma investment? maxaan weli social media iyo YouTube aan si free cilmiga ugu gelinaya? halka qof oo idinkeedan ku dhex jira oo guuleysan doona oo $1 million gaari doona ani ma ogi. There's going to be one person oo idinkeedan ka mid ah. I don't know qofku yahay. oo familkiisa ka saari doona faqriga gaajada. oo bulshadiisa horumar iyo u horseedi doona wanaag. oo waalidka caawin doona. I don't know qofka uu yahay oo ka mid ka ah dadkiina. laakiin maalinta qofkaas uu guuleysto aniga I did my job marka. because aniga bas haasoo kale ahaa. hal qof oo dadku dhex jira baan ahaa. 100 kun oo qof baan ku dhex jira. qof baa 100 kun oo qof si isku mid wax noo wada baray. waan dadaalay wixii baan bartay meel baan ka soo baxay. marka haddaa aragtay anigoo macluumaad waaweyn oo macno leh si free idin siinaya hal qof iyo 2 qof iyo 3 qof ayaa jirta. hal qof iyo tusaale u soo qabsanaya calshan boqolaal in kamid ah milyaneer noqon doona. of course I'm sure. laakiin waxaan ka wadaa tusaale ah. ma rabo inaan Maxamed isku mashquuliyo kaliya ama Cabdullaahi ama Axmed Deeqna isku mashquuliyo ma rabo ama Maryan. maxaa rabaa kulligood inaan si isku mid ula dhaqo. kulligood inaan same information because hal qof iyaga kamid ah guuleysan doona. I don't know midku yahay. waxaan rabaa inaan idiin sheego nidaamka inagu aynu ku shaqaysan dhamaanta ama istaraatiijiyadeenu ma aha wax hal meel ku dhagan. waa macluumaad fara badan oo la isku keenay. trend flowing-ka wax la yiraahdo iyo inaan higher low lower high ixtiraamno
وموضوع قارة وحلا يرادا ونقنيا إليت ويفز iyo waxa la yiraahdo wave analysis group kala u noqonaya Soomaaliya garan waa school of thought gaar ah way dad baa jira keligii ku shaqeysta laakiin ma haystaan natiijada haysan oo kale dadka hayr loo kaliya wali ku dhagan natiijada haysan ma haystaan group kale oo waxa jira smart methodology-ga ama liquidity-ga iyo sniper interview u madax maray oo liquidity-ga sniper interview kaliya ku dhagan yihiin laakiin trendigi ma fahamsana trendigi waa ka hoos baxsan qoladaasna natiijada aan haysana ma haystaan because fahamka aan ka haysana trendiga kama haystaan markuu liquidity ka yaro suuq down trend ah oo u galo waxa la yiraahdo fursad buy ama waxa ku dhacaya liquidity-giisa iyo wixiisa ma shaqeynaya out of context buu noqonaya group kale istaxaalo waxa jira supply and demand zone kaliya fahamsan oo supply and demand zone ay kaga dhigtay oo u qaba inay cilmiga adduunka tahay laakiin aan haysan liquidity-gi aan haysan trendigi iyaguna ma helayaan guusha aan haysano iyo levelka aan joogno group kale oo waxa jira break of structure ka kaliya kaga dhigtay laba higher low raadinaya break of structure soo qabsanaya oo raba inuu galo saddexdii kala ka maqan inaga istiraatiijiyadan marka waxa weeye waa combination of different schools of thoughts waa isku keenka nidaamyo kala duwan oo suuqa loo akhriyo marka waxa isku keena marka inaga iskala istiraatiiji ah because qof inaga inaga horeeyay waxyaalahan isku keenay aniga isku keenay ma jiro win ratio aan haysanana waa 96 to 98% way su'aalo waxa kugu filan nin waxa la yiraahdo been ah qof dhintay iyo qof magaamo marxaati gashta tareeyadii aynu soo dirnay 6 bilood la soo dhaafay soo akhriso iyaga taala kugu filan 96 to 98% win ratio baysan hatta wax 80% haysto Soomaaliya ma jirto hadaba anagoo dadka meeshii ugu sareysay joogna cilmi ahaan aqoon ahaan waa inuu fortune uga bixinaa waxeena waa inuu lacag waali ugu bixinaa waxeena because of dadkeena Soomaali baynu nahay masaakiin baynu nahay qof walba qoys dan yar ka soo jeeda qof walba ummad baa ka dambaysa qof walba waxa ka dambeeya waxa la yiraahdo waarid caawinaya kuwa dad jaamacad ka bixinaya kuwa dad iskuul ka bixinaya soo hadii aan noqdo tooshka yarka oo ku ifayo oo waxyaalaha waaweyn oo aad wadid isaad uga guul gaartay tooshka yarka isticmaalaysa hadaa ku noqdo aniga intaas ugu filan lacag walba oo la helana intaas igala weyn dabada message aniga iga qaadaysid message iga qaadaysid kan ayuu noqonaya hadii aad hurdid oo islaada cilmi kale weyn baa soo socdo kan ahayna cilmi kale oo soo socda haba yaraatee ma jirto intaan way waxaan ku shaqaysano intaan way waxa aan bil kasta ku qabanno kun bibi wax ku dhow wax kale oo jira ma jiraan inta waxa soo raacda fahamka qofka aad tahay psychology-gaaga qof oo aan wuxuu dhahay macallin istiraatiijiyadii buu waa sharaxday maxay dadku ka dhageysanayaan deemaana rabaa dadku inay dhageystaan baa ku hadduu qofkaasi istiraatiijiyadeeda fahmo aqli cilmi ku filan oo haysto oo naftiisa ku xakameyn karo I did my job bataaganani laakiin still waxa jira doona dad iyagu istiraatiijiyadii fahmay aan trade-ki fulin karin trade-ki aan fulin karin oo execution-kii iyo decision making-kii iyo joogtayntii wax isku mid ah waa ka maqan waxaan rabaa marka inaan ogaataan adduunka wax forever ah ma jiraan أنا وجوجيا اسمها investmentي Discord كنا وحين عندهم ينو صعنيا as far as I'm concerned لكن any moment واحد كسنين أمان كرام كحساب because واحد أول شيء ما نهيسن ما أنت نوي ماذا أنت ما أنت أي واحد نول يهينه كفائدة يسو أنت ما أنت وبنار كل جليه أو صور فديه أو زوم كل جليه أو علم كل فائدين أو سؤال ويدين كده كفائدة يسو واحد كستاد أكره بريك ماله شكلنا نبص حنا كرتا هذا ترى كوني واجي أنت شيء كذا الشنيد maxaan uga faa'iideysan waay waagi intii macalinku uu 3 suun noo soo gali jiray waxa uga faa'iideysan inta bari kamaan ku qomameyn lahayd now is your time go back and focus try and understand waxa ka maqan qof walba wuxuu leeyahay qodob weakness ah ma supply and demand zone ka basi fiican kaaga dhaadhici waayay ma waxa la yiraahdo trendiga khalda saamaanto dhan ma liquidity iyo manipulation u dhaco baadan fahamsanayn find meesha ku liidatid ama meesha weakness ka ah soo hel kadibna su'aal naftana iga qabo anaga diyaar ku ahayna wareerisid su'aal nafta iga qabo aniga iyo macallimiinta kale ardayda dadka meesha fog gaara ee guuleysta waa dadka su'aalaha badan waa u jeedaa qoraaladiina aadka u dhaadheer oo aadka u quruxda badan oo meesha ku soo qorqoraysan kulligiin laakiin waa ka xumay ma akhrin karo hadii kale inaan video ka soo jeestay noqonaysa intaas waa intaas guys
marka wax iga yar hadalkan inaan laba waxna kala cadeeyo midna idiin xaqiijiyo labada waxaan kala cadeynaya waxay Ismaa Investment Academy anigu ma lihiinimayo iyo gabdhaha wabina ogaataan baa la rabaa FX Primus baa iska leh iyada maamusha iyada mas'uulka qofka soo galiyo qofka aan soo galin xataa ardayda aan Hayaan Academy ku jirin baa nala joogtay imisa qof hadda Ismaa Investment wax ka baratay oo weligeed aan macallimiin ku xirnayn meel aan joogaa hore ima boqolaal soma midda labaad oo rabina fahamto waxa weeye Ismaa Investment inaad soo gashid iyo iska daba warwareegeedu maaha waxa adil lagu xastiyo ama lagu dhibaateynayo maaha waa wax gacan saddexaad iyo gacan afraad iyo gacan shanaad maraysa soo qofkii choice ma haysto inuu suga ma hadda Cayd iyo Ibrahim maxay sameyn karaan magaca way gudbiyeen they only have to wait nothing else ay sameyn karaan soo beentay marka waxa ogaataan inay dadaalayaan dhalinyaradu waxaan oo dhan waa bilaash qofku markuu bilaash kugu shaqeynayo oo free kugu shaqeynayo respect buu ka mudan yahay ixtiraam buu ka mudan yahay ina u duceysid buu ka mudan yahay ina isku did ina fahamtid buu ka mudan yahay of course magaca ana bixiyay Smart Money ana bixiyay magaca Smart Money website kana bixiyay rules ka ana iska lahaa sida 10 u bixinayo waxa aan duubayo sidan zoom u galayo inna faraha lama soo gali karto iliska iyo shuruudaha aan wada galnay kamid ahayd laakiin inta marka laga yimaado mulkiyada barnaamijka iyo fulintiisa ayaga iska lahaa FX Primus baa iska lahayd laakiin hawlwadeenka iyo shaqada socota anaga iska loo madax bannaan waxaan ka rabaa markaas inaa ogaataan inta 6 bilood la soo dhaafay waanigi idin iraahday dagaal baan ku jirnaa waanigi seminaarada badiyay live ka ah Istanbul halkan waanigi webinar sidii bilaabay halkan Zoom inaan soo galno waanigi idin bilaabay inaan buugii taabaco waxaas oo dhan waxay tahay olole waxaan wadaa ah ilaa 1000 qof oo cusub oo guuleystayaal oo rasmiya oo suuqan 100 sano soo socota ka shaqeeysan inaan ka soo dhaxbaado dan ani waxaan sameyn karaa 2-3 years baa wax iska qaadan karaa break 2-3 years baantaan meel tuula iska dawan internet helo baan break iska qaadan karaa because shaqadeedii waa ka soo baxay soo maaha of course mar walba joogaya oo Instagram-ka la socota kulligiin follow baa idin ahay qof kasto idinkeedan kamid markuu follow soo dhaw follow back baan soo dhahay waanigi idin sheegay haddii wili aan follow back soo dhihin ii soo dir trade qaadanaysid in Smart Investment kamid tahay inaan la socotid waxun aan ku fahmi karo in ardayda ila socoto kamid tahay ii soo dir isla markii follow back baa soo dhahaya qasadaadana waa la socon doonaa for the next 10-20 years meel kasta aad gaartid intaas waa intaas waa ka xumaa inay sheekadan ay dheeraatay oo webinarkii dhanba ay qaadatay laakiin waa lagu khasbanaa inaan qodobada dhowrka ah idin kala cadeeyo waxna ila fahamtaan haddii kale waxaas leedihiin meeshan maxaa ka socda dadkan maxay saa u leeyihiin bala anigana waa idin sheeginimayo iyo gabdhayo ma jirto waxda hoostiisa oo soo socda oo boom la oran doono macallimu sidaan firiga wuxuu noogu baraya dantaas no there is no strings attached this is it because waxba lama harin wixii ahayo dhan waa idin sii dadku way aamini waayeen markaan idan iraade free baan wax idin ku baraya dadku way aamini waayeen markaan iraade istiraatiijiyad suuqa laga shaqeysto tii ugu qiimaha badnayd baan ku fududeynayaa oo simplification intaan kuugu sameeyo oo aan simplify gareeyo baan farta ka saaraya dadku way aamini waayeen markaan iraade isla istiraatiijiyadaas baan signal kuugu diyaarinayaa every week na ku siinaya si free way aamini waayeen because loogama baran qof Soomaali inuu sidaas sameeyo so there is a first for everything igamana aha istustus iyo kibir iyo wax kala toona waxay iga tahay inaan tusaale sameeyo qof waxa idin ka soo warbixi idin ka soo dhaxbixi doona biri mowduuc kala forex aan ahayn sidaas oo kala sameeyo oo wanaag ka taga qof waxa idin ka soo dhaxbixi doona biri abundance-ga aamina iyo inay waxa aan haysano naga badan yihiin that is the goal for me hada fahmisaan iyo dikala so please aniga idinkaan idin shaqeeyaa idinka idin shaqeeya sida uu ogaado qadaa aragtaan qof ani wax iga sheegaya qof idibaateynaya qof magacayga qeybaynaya agteeda cafis bukaya idinku waxba ku darsanina akhira intii la isku yimaado u qabsan mayo qof bini aadana because of waabu ku maagay lagama yaabo because hadda cafinaya kan imaagay doona kulli cafis beegiin agteeda idinkana xarjinayna sidaas sameeyaan insha Allah waxaan gudbiyaa tariyada asbuuca iyo suuqa siduu eegyahay inagoo isha marin doona waxa la yiraahdo inagoo isha marin doona tariyadii la soo dhaafay sidoo kale iyo muhiimadda ay leedahay tariyada marka aan soo dirno in ay idin ka baqin oo ka cararin okay waxa sameysaan qoraaladan aan meesha ku soo qortin oo dhan muhiim bay yihiin because inaan akhriyo baan rabaa waxyaalaha fikradaha aad qabtaan wanaaga aad qoraysaan waxa soo dhan marka zoom ku dhamaado Instagram-ka igu soo diro kulli halkan aan u fadhiyaa kala toodan inaan Instagram-kiina ka jawaabo oo aan
oo aan waxa la yiraahdo su'aalihiina aan kasoo jawaabo qof walbana waxaan soo siin doonaa follow back waana soo dabageli doonaa insha Allah okay with that being said aan u gudubna marka waa yahay casharkeena sida aa ogtihiinba asbuucii lasoo dhaafay saddex trade baan qaadanay Soomaali dhowr trade baan soo diray asbuucan bilowgiisii dabcan sidaa wada ogeydeenba oo kulli ahaa trade mustaqbal leh by the way waxaa ogaataan guys aniga discordka messagekiisa kama soo jawaabi karo oo uu iga xun yahay so haddaa discordka mar walba message ka soo diray sidoo isleedahay macalinka muxuu messageka ugu soo jawaabaya discordka ma wuu iga xiran yahay messageka dhan so wixii message oo muhiim oo aragtid in arko waxa igu soo wareegtaa waxa igu soo dirtaa waxa la yiraahdo telegramka igu soo dir insha Allah waxa ka wadaa instagramka igu soo dir last week waxaa haysanay GBP JPY iyo AUD JPY so mine exactly we had this trade which was a wonderful trade this was GBP JPY trade aad u qurux badan buu runtii hal mar xataa stop loss keena dhinaciisa soo aadin buu ina siiyay boqolkiiba bibay nooga soconay trade-ka kale aynu qaadanay wuxuu ahaa AUD JPY oo soo ka horeeyay soo isniintii buu xasan filayo oo JPY ayuu daba socday JPY noo furanaya AUD JPY qaadanay isagana kan uu ahaa labadii trade ba waa kuwana hadda hortiina ka muuqda actually bishan oo dhan afarta trade baan qaadanay bisha maanta 17 maalmood maraysa waxaan qaadanay JPY oo runtii ina siisay waxa la yiraahdaa 100 bib baan uga soconay 102 bib waa ka helnay laakiin waxay sii daadatay 160 bib so hadda kadib waxaan samayn doonaa inaan idin sheegana waa rabay trade-yada aan soo diray TB5 baan soo raacin doonaa awal TB1 TB2 TB3 soo ma jirin because asbuucii dhaweyd oo bishii hore dhamaadkeedii ayaan waxaan dib u fiirinay trade-yada aan soo dirnay oo dhan June iyo May iyo July ba kulli 150 bib bay dhaqaaqeen hadda kadib waxaan samayn doonaa trade-yada inaan TB5 ku soo diri doono GBP JPY iyadana waa soo dirnay waxaan uga soconay inagu waxaynu uga soconay ilaahay kuma sama darnaade 100 iyo something 106 105 bib meelahaas uga soconay laakiin wuxuu dhaqaaqay trade ku imisa bib 270 bibs buu dhaqaaqay because it had the potential to break this low so wax lama filana ma aha ilaa 250 inuu horta dhaqaaqi karo markii hore waa lagu xisaabtamay ilaa 200 because lowgan in la jabiyaaranay ilaa lowga hoose in la sii jabiyana waa suurtagal AUD JPY sidoo kale AUD JPY wuxuu ahaa trade aan soo dirnay kadib wuxuu sameeyay TB1 oo 37 bib degdeg buu inoo siiyay ilaa 50 bib ayuu dhaqaaqay TB2 gan uu ku dhawaaday kadib uu soo laabtay asalka ayuu u dhawaaday asalka markuu u dhawaaday waan idiin soo sheegay oo waxaan raacday asalka Turkiya because marmarka qaarkood way dhacdaa saan oo kale suuqa inuu asalkiisu soo yara durko markaad aragtaan inuu idan dhaaya asalka Turkiya waa kana AUD JPY hore TB1 ayay inoo siisay haddii aad weli ku jirtid asalka soo durkiso iyadoon asal ku dhicin ayaa hadalka soo qoray sababtoo ah suuqu meeshan inay tahay waxa la yiraahdo entry for the big guys waa ogna so waxa laga yaabaa dhaqaaqyada ay damacsan yihiin suuqa inay dhaqaajiyaan daraadeed inuu suuqu nuxnuxsado oo waxaan hadda arkay sidoo dhan oo labadan kan dholo dibna ugu laabtay marka dhayligeeda tago waa week way soo ma jeed waa weeks way waxaan so waxa laga yaabaa in ay manipulationkii weli meesha ka socoto maadaama meesha ay entry tahay so always waxa la samaystaa a bigger room for stop loss baa la samaystaa stop loss keena marka hore wuxuu ahaa 29 10 baan ku soo darnay 30 iyo something ayuu noo noqday markii dambana sida aad ogideen 39 iyo 40 buu noo noqday kadib trade-kii waa uu dhaqaaqay waxa uu sameeyay TB2 TB3 TB4 buu ku dhacay 108 bib ahayd waana uu iska sii socday oo imisuu dhaqaaqay 170 bib GBP CHF JPY-na sidoo kale waan idin sheegay GBP JPY-na sidoo kale GBP USD actually waxay ahayd one of the trades aynu qaadanay oo stop loss-ka inooga dhacay sababtiisana insha Allah maanta ayaan idin sheegi doonaa oo ah runtii marka aynu trade-yada galayno rules aynu trades ku galnaa sooma rules aynu trades ku galnaa kala horeeya buugana waad ku arki doontaan insha Allah ruleskaas kala horeeya rulkiisa koowaad muxuu yahay come on guys tell me hadda fiidiyoga daawanaysid ardada chat-ka baan la sheekaysanaya marka saa u ogaada exactly rule-keena koowaad waxa weeye inaan trendiga xaqiijino so trendiga marka la xaqiijinayo waxa laga maarmaan ah in trendiga uu warkiisu cad yahay ama waa up trend oo waxa u socotaa fursad buy ah baa u socotaa soo ma ama ama waa down trend oo fursad sare baa u socotaa
wax ka dhaxeeya ma jiraan sometimes waxaa dhacda marka inaad ilduuftid bini aadan baa tahay malaa'ig ma tihid khaladaad kaa dhaco oo tradekii oo down trendkii dhameeyey sidaan oo kale tradekana wuxuu ahaa uptrendkii baa dhammaaday like that so dhaqaaqan koowaad ee uptrendka dhameeyey micnaheedu maaha inuu down trend bilowday laakiin waa inuu bullback sameeyaa bullbackta markuu sameeyo waa inuu halkan ka bilaabaa move kale oo lower low cusub sameeya marka lower lowgan labaad la helo markaas ayuu ku ansaxmayaa waxaana inuu real down trend yahay markaasaa la siin karaa darajada down trend laakiin haddii sidaa hadda JPP USD ka dhacday oo kale uu hal dhaqaaqo saan oo kale soo laabto oo uu meesha ka saaro higher lowgii dhaqaaqan ma ansixin weli suuqu inuu down trend yahay maxaa la rabaa inuu bullback sameeyo bullback markuu sameeyo bullbacktan maxaa la rabaa inay abuurto new and the first higher low inay abuurto marka higher lowga koowaad abuurto korkaa tagto halkan maxay ku sifoobaysaa markaan real higher high halkan maxay ku sifoobaysaa real higher high waxaan u socday marka inaan gaadno fursaddan laakiin weli trendi ma haysano rasmiya weli trendi rasmiya ma aanu haysan maxaynu haysanay qisadan oo kale aan haysanay oo waxaynu rajaynaynay maadaama dhaqaaqani uu yimi out of nowhere kadibna uu down trendkan meesha ka saaray waxaynu ogeyn in la heli karo liquidity waan helnay halkan aan ka helnay waxaynu ogeyn in meeshaan ay noqon karto waxa la yiraahdo counter trend waa ay noqotay counter trendka in la jibiyo ay ahayd waa la jibiyo walow markaan gadaal u eegnay aan xaqiiqsanay xataa counter trendka inaan si fiican loo jibin markastoo trade ku khasaarto waxa fiican inaad dib u laabatid oo aad qiimaysid counter trendkeena inaan si fiican loo jibin ayaan soo xasuusanay soo xaqiijinay maadaama uu hay halkaas ahaa dan suuqii waa uu yimi stop losska oo 30 biiba uu nagaga dhuftay kadibna kor ayuu aaday 50 biiba ayuu dhaqaaqay haddana waa isaga daadanaya oo sii socda so khaladka koowaad aan sameynay wuxuu ahaa tradekan trendigeeni ma uusan cadayn oo waxaan haysanay kaliya hal move baan haysanay marka aynu helno higher high cusub oo saan oo kala hadda suuqan waa real uptrend fursad kaliya raadin kartid waa bay laakiin annaga aan dhaqaaqan helin markaan trade-ka galno mistake aan sameynay muxuu yahay mistake aan sameynay waxa weeye trendigii oo aan wili cadayn ayaan galnay soo 70% ayaan trade ku galnay ee kuma aanu gelin 100% inagu waxaan 100% na trade ku sida midda kale waxaad ogataa bisha July iyo Agosto waa bilo fasax July iyo Agosto bangiyada iyo institutionsku fasax ay ku jiraan haddii bangiyada iyo institutionsku ay fasax ku jiraan annaga ma helina fursado badan oo suuqa aan ka qaadan waana sababta aan hadda asbuucan oo talaada mariyo wali aan fursad aan u hayn laakiin waxa ogaataa markiin hal fursad helno sida saddexda aynu helnaba so far ina 200 bib ku dhaqaaqso last month afar trade oo kaliya aan helnaba waxayna siiyeen 400 iyo 40 bib ku dhawaad bishii kasii horeysay waa ogeedeen 900 bib ayna siiyeen bishaan waxaan ku kalsoonahay trade-yada hadda inoo diyaarka ah inaan ka heli doono fursado qurux badan waxaan ognahay fursadaha aan weli diyaar garoobin inay inoo diyaar garoobi doonaan oo iyagana warkood uu cadaan doono marka waxaa la rabaa marka sidaan oo kale ay dhacdo June hadda sida dhacday hadda waxa la yiraahdo August iyo hadda dhacay oo kale markay dhacaan waxaa dhici karta sometimes inaad trade qeybto khasabtid marka fursad weyn binaadan baad way dhacdaa sometimes laakiin waxaa la rabaa rules inay ku qoran yihiin oo aan daahmarin balse trade-kan JPP USD sababta u qaadanay wuxuu ahaa reversal ahaan ma uusan ahayn inuu continuation trade ahaa ama uu trending socdo reversalka ma la qaadan karaa sometimes haddii fundamentalkuna ku taageerayo shuruudo kale ay haystid laakiin ma ahan VIP trade la isku wada halayn karo because ma haysto 100% systemkeena ma uusan intaas waxay ahayd asbuucii hore iyo trade aan qaadanay asbuucan sidaa u wada jeedaanba dollarka xaaladdiisu weli way cakiran tahay oo buuq ayaa ka taagan technical ahaan waxaan u jeednay dollarku inuu horta kala wareegay oo uu la filayo inuu down trend noqdo ilaa iyo demand zone-adana suuqa la keeni doono ayuu ekeed balse fundamental ahaan mid ka duwan ayuu muujinayaa oo haddii aynu fiirino fundamentaliskii ugu dambeeyey ee suuqa dollarku wuxuu muujinayay inuu soo fiicnaanayo meelaha qaybtood okay let's focus on dollar here okay sida halkan aan ka arkayno custom node bisha koodeedii ka soo bilow ya inta badan waa kuwan wararka aan raba aniga wararkan baa dollarka aad u saameeya wararkan oo dhanna waxay noqdeen warar positive fundamental ahaan oo wax walba oo muujin karay inuu dollarku xumaan karo way soo wada fiicnaadeen sidaan arkayno halkan qayb xun way jirtaa laakiin generally informationkii faraha badnaa ee dollar ka soo baxay oo dhan
waxa weeye inay wada xumaayeen ninka runtii maxamed shukri wuxuu dhahay macalin 2020 ayaad noo sheegtay reversalku inuu terroriski badan yahay of course waa terroriski badan janno kale laakiin waxaan samayn doonaa dhowrkii asbuuco mar iyo labo u fakan doonaa xabad laakiin ma badinin insha allah intiisa badanna waa ka fogaan doonaa dollarka arrintan waxaa u dheer in waxa la yiraahdo interest rate aan la taaban waddanku markuu inflation dhaco inflationka waxa lagu xakamayn karo waa in interest rate la maamulo okay ama haddii interest rate aan wax laga bedelayn waa in inflationkaas waxyaalo lagu xakamayn karo la sameeyo maraykanka inflation waa liya waa ka socda ma qaanina ogtihiin iyo kale inflationkii ka socday dowladdu waxay tiraahday waxba nagama gel adduunyadii baa isbedeshay dollarku inflation ma baahaba this is normal bay taagan yihiin maxay u diyaar garoobayaan shaqooyin cusub in la abuuro si meeshii shidaalka waxaa tusaalahaan oo kale $3 tusaale ahaan yaa hadduu $6 noqon kale xibitaagan $6 is the new normal oo kale ma garat arrintaas marka waxay kaliftay in xaaladii ay dileema abuurto oo dhinac loo raaco la waayo sidoo kale isbuucii hore actually talaadadeedii hore umaleynaya ahayd waxaa la ansixiyey $1 trillion oo ah infrastructure bill oo madaxweyne Joe Biden oo loo ansixiyey Congress-ka Mareykanku waxay ogolaadeen in $1 trillion oo dollar dowladda la siiyo si ay dalka ugu dhisto infrastructure waxaa la yiraahdaa kaabayaasha dhaqaalaha sida aeroboorada dekedaha jidadka waaweyn waxyaalaha bridge-yada tunnelada waxyaalaha magaalooyinka isku xiro dhan infrastructure baa la yiraahdaa Mareykanka 20 sano soo dhaafay infrastructure-kiisa ama kaabayaasha dhaqaalaha dowladdu waxba kama bedelin waayadii hore si fiican loo dhisay 80-aadkii 70-aadkii waa xoog loo dhisay soo 20 sano soo dhaafay focus lama siin so waxyaalaha hadda siyaasadaha ugu waaweyn oo Biden ku dagaalamaya bay kamid ahayd inuu infrastructure wax ka bedeli doono oo casriyeyn doono maadaama dunida isbedelayso so $1 trillion baa dollar loo ansixiyey last week loo ansixiyey arrintaas marka waxay abuuri doontaa shaqooyin badan bay abuuri doontaa dollarka Mareykanka inflation kastoo jirana awood buu sii yeelan karaa fundamental ahaan arrintaas marka waxay keentay in xaalad labayna galno oo waxaynu arkaynaa halkan technical ahaan inuu dollar kala wareegay oo trendiga kor u socday waa la kala wareejiyey xataa waxaan helnay reversal ba waxaan kasii helnay counter trend so waxaan filayaa aniga suuqaan soo daata technical ahaan marka loo hadlayo fundamental ahaanna waxaan haysanaa every reason oo aamini karno dollarku inuu kor u sii kacayo marka la fiiriyo janalada wararka investorska dadku waxay hadalhayaan everyone is talking about dollarku inuu kor u kacayo marka sidaas daraadeed waxa ugu qurux badan inaan dollarka banaanka ka joogno inta warkiisu kala cadaan doono marka waa sababta aan ugu wareegayo CHFT waaye AUD waaye GBP waaye because dollarkii meel loo dhaqaajiyo male inagu waxaynu wax ku galnaa certainty wax la dhaho inaynu haysano sababo aynu wax u aamino inaynu haysano taxliilin rasmi nasiib waxba kuma galno USD waan geli jirnay maanta inaynu hagta laga yaabo aan iska galno waxba kuma galno anagu macna wax ku galnaa marka fundamentalkeena iyo technicalkeena is waafaqaan waxyaalaha aad buuga ku baran doontaa meena ka mid tahay haduu ilaahay idmo dhowr lacagood baa jira oo shalay ii diyaarsanaa waxa ka mid ah AUDUSD dan oo kale waan ogaa inay sii daadan karto balse asbuucii ka horeeyay AUDUSD lacagaha suganaya kamid markaan qaadanaynay GBPUSD oo kale markaan qaadanaynay AUDUSD dan waxaan ka rabnay kaliya inay korkaan timaado because lower high waa kana lower low waa kana waxa la yiraahdo liquidity waa kana move-kii jabiyay counter break waa kana soo laabad everything uu nasiyay fursad waxaan ka raadinaynay fursad sal ah laakiin intrigana ma siman haddii aan halkan ka geli lahayn stop loss-keena aad u dheeraan lahaa konton biib buu noqon lahaa of course waa guulaysan lahayn oo lacag fiican baa heli lahayn oo 130 biib oo kale heli lahayn laakiin lacagta aan faa'iidino waxaa ka muhiim badan mar walba inaad ka taxadartid lacagta aad khasaari kartid so sidaa daraadeed ayada iyo NZD/USD laba lacagood wax ka sugay bay labada midna wax ka weynay NZD/USD sidoo kale very u soo dhawaatay halkan markuu suuqu marayay all we needed wuxuu ahaa in korkaan lagu soo laabto in korkaan la yimaado 25 biib baa ka dhimaneed ma aysan imaan midda kale lacagtan waxay samaysatay complex pullback waaliya lower high-gii waa kaasa lower low-giisina waa kana inta u dhaxayso oo dhan waa pullback way qaab daran ma garatay marka labaduba hadda waa inay ka baxaan safkeena because wixii aan uga baahnayn waa ay sameyn waayeen sidaas daraadeed shalay subax ayay markaan diyaariyay waxba ugama baahnin haatan iminka lacagaha kale oo nisha ku haya waxaa ka mid ah USD CAD oo runtii muujinaysa
in ay kala wareeg abuurayso. Actually meeshan higher high baa ku jiray haddaan khaldanayn. Yeah, there's one higher high here. There's one higher high here. Even on the 4 hour iska uu ku jira. There is one higher low there. Muujinaya inuu kala wareegay waxa la yiraahdo USD CAD. waxay muujinaysaa inuu suuqan kala wareegay ayay muujinaysaa wax fursado badan suuqa ma jira soo meel aan waxba ku jirin baa xataa wax ka raadinayna sometimes mahadsanid maxamed cusmaan jana kale liquidity-gan ayaa aniga soo jiitay indhahayga iyo trendigan cusub oo bilaabanaya balse waa sheekadii GBPSD oo kale waa very risky trade laba waxyaalood risk waa ka dhigayaan kow waxaa risk ka dhigayaa in waxa la yiraahdo higher low-gan rasmiga aan la jebin kana ay dood ka taagan tahay higher low-nimadiisa waa kow laba waxaa risk ka dhigaya haddii waxaan u hal dhaqaaq ahaa okay oo hadda bullback tahay waxa socda halkan dhaqaaq kuma kalsoonaan karno because lower low cusub ma uusan samaysan just waa random move waaye it's not trend sababta uu safkeena usoo galana waxay ahayd wax kale oo la taxliiliyo ma aynu haysan suuqyadii kale oo dhan isha waa soo marin euro AUD runtii waxaan oran karnaa waxay ahayd trade-ka ugu quruxda badan oo aan isha ku hayay shalay markii aan diyaarsanayay taxliilinteeda halkan suuqu marayay waxaan kaliya sugayay kandaladan markay bilaabanayeen inuu soo socdo halkan yimaado haddii uu shalay trade-kan halkan imaan lahaa waa soo diri lahaa fursaddiisa bayga ah laakiin ma uusan imaan waxa la yiraahdo korkaas ayuu usii socdaa lacagtan sida arkayno 100% ruleskana dhan way buuxsay higher high higher low higher high higher low higher high baan haysanay liquidity baan haysanay waa la soo jebiyey waxaa la yimi almost waa la soo testi jiray higher lowgeeni balse liquidity kadib waxaan helnay last candle of mitigation kor ayuu suuqu soo laabtay haatanna waa usoo degaya okay lacagtan rajan ka leeyahay insha allah haddii ay ilaa biri soo laaban karto waa arkaynaa haddii kalena wax kala raadsanaynaa dakhasa ma jira euro JB waxay la qisa ahayd USD yaasha waxaan sugayaa usbuucii hore oo dhan markaan JBY iyo waxa la yiraahdo JBY iyo markaan qaadananay AUD JBY ayay la qisa ahayd euro JBY ciilka lacagta naga qabtada ogaan lahayd because laba jeer ku soo dhawaatay intrigii inay intriga kaliya timaado baan ka weynay haddana waxa la rabaa inuu systemku ka adag yahay lama rabo in adigu systemka ka adagta systemku inuu ka adag yahay baa la rabaa oo aad ka baqdid ruleska fiiri meeshaan waxaa ka dhimanayd inaan trade-kan active garayno 18 bib 18 bib kaliya haddii noo soo buuxin lahayd fursaddan waa ka faa'iidaysan lahayd laakiin 18 bib waa badan tahay 8 bib hadduu intriga u jiro suuq oo laakiin intrigaaga imaan waayo waxaa samayn kadib ma jirto saaxib waa inaa iska daysid 150 bib adoo arkay inaa ka tagtid weya rules are the rules maalinta aad soo gaartid isxakamaynta levelkaas ah maalinta aad soo gaartid maalintaas suuqa lacag sameynaysa inta ka horeysa maalinba meelba madaxa ku garaacanaysa qub maalinba qolo cusub baa ordaysa maalinba meel bay ka dhacaysa sooma soo ayadana safkeena way ka baxaysaa maadaama lower low cusub oo hadda samaysmay waxaan uga baahanahay askir USD kaas soo kala safkeena waa ka baxaysaa EuroCAD lacag kale oo aan mustaqbalka lahaa ayay ahayd runtii waxaan ogeyn suuqaan inuu uptrend bilaabay uptrendkii sida halkan ka arkaysid waa la soo jebiyey trendi baa lagu jebiyey oo lower high lower low baa lagu jebiyey maradii trend lagu jebiyey lower high gan waa cizeynaynaa oo meesha ka saari mayno actually qodob cilmi ah meeshan ku jira anadiin yara dul istaago suuqu markuu u socdo uptrend like that soo ma suuq baa uptrend sidaas oo kale u socday allahumma salli ala sayidina maxamed waxaynu rabnaa inagu in trendiga la jebiyo soo dhaqaaqan trendiga jebinaya laba qaab ayuu u eegyahay markuu trendiga jebinayo qaab mar waxaa loo jebiyaa trendiga dhaqaaq xawli ku socdo hal mar baa soo jebiya dhaqaaq noocan trendiga hadduu soo jebiyo weli ma haysano wax garantiya oo inoo cadaynaya suuqan inuu down trend yahay waxaynu sugaynaa inuu one more lower low helno because waxaana suuq inuu laabto lower low ina siiyo haddii kale sida euro GBP ka dhacaysay lacagaha qaybtood waxaa dhici karta intii trend dhan la dhamays la jebiyo inuu haddana suuqa korkiisa iskaga socdaa dhici karta waxaa dhici karta in suuqu intuu soo laabto uu meelaha yimaado oo halkaa ka bilaabo higher low koowaad xagee noqonaysa halkaana noqonaysa lower high koowaad aan hal mar kusoo wada celiyo halkan waxay ahayd higher high soo ma halkaasi maxay ahayd higher high halkaasi maxay ahayd higher low soo ma We have two more higher lows and higher highs. That was higher high. Higher low baan ka wadaa.
and that was also another higher high صح and there's one more اللهم صل على محمد okay then دقاقنا دعي حاولوا بمش كتبي like that دقاقة ساس كلام مش كتبيه معنهيدو كما دقنا إن هوري دون ترن كبلودي وإسلام مركي هبلاب إن دون ترن كاغا قرشيسي حتى هذا رولسكي كيش رولسكي محاكم إذا إن أنتو سوق صولابتو وميشان كاسيو liquidity halkan كاسيو ما فاهمسا liquidity كدي ميلان ديمان زونو سبلاي زونو كاسيو then liquidity la jabiyo counter trendka uu ku siiyo ruleski dhan inuu sameeyo saas oo kale halkaa trade ha kasoo gelin okay halkaas trade ha kasoo gelin xataa hadduu saxan yahay sababtoo ah 90% of the time tradekaas aduu kugu noqon doona oo waa uu ku dhibaateyn doona maxaa la rabaa marka inaad samaysid we need one more low tan ma hesha haa suuqan waxaynu u baahannahay hal mar oo kale inuu lower low samaysto dan kan wuxuu noqonayaa marka maxay real lower low noqonayaa kan muxuu noqonayaa real lower low because of this lower low darteed buu noqonayaa ma aha inuu markiisa hore lower low ahaa mala socotaan give me number 2 ila socota kanina maxay ku noqonaysaa lower high now marka trade kaga raadso good then suuq muxuu sameeyay haddii ku sug markina ruleski kala heshid haddii ku sug inaa ruleski kala dhan heshid everything kala inaa heshid bla 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 kadib hadda inaa marka suuqi qaatid ka fakar hadda trade kan xalaal ku yahay marka why trade kan hadda xalaal ku yahay because of this new lower low darteed we have a reason to believe suuqu si socon doona waxa jirta lower lowan iyo lower highgan iyo higher highgan iyo higher lowan arkasaan si rasmi ah ka dambaysan lana xiriirta supply iyo demand maxay tahay sirta la xiriirta suuqani aan dhinaca kale kugu tuso hadda horta aan israaciga kan xabadiisa kale meeshan joogna halkan ah tusaale waa kaas tusaalaha kale muxuu noqon karaa marka tusaalaha kale wuxuu noqon karaa in aan meeshan hal daqiiqo lagu jibin in meeshan aan hal daqiiqo lagu jibin maxay lagu jibiyo lagu jibiyo trend in meeshan aan hal daqiiqo lagu jibin trend lagu jibiyo sidee trend lagu jibinaya iyadoo aan higher low la soo gaarin oo halkan la marayo hadduu suuqu ku siiyo a lower high like this kadibna caadi u jabiyo hadda suuqan haddii uu fursad abuuro waa ka faa'iideysan karta hadduu meeshan fursad ka abuuro waa ka faa'iideysan karta why because you already have two lower lows trending weynaana meesha uu ka baxay labada arrimood ma kala cad yihiin nimayo because it is very important markaad trade-ka qaadanaysa inaad iska hubiso qodobadan dhowrka ah marna waa lagu ogol yahay inaad soo laabadka marka sida higher low loo jabiyo haddii meelaha fursada keesh waa qaadan kartaa because already ayuu trendigu soo dhismayey marna trendigu ma soo dhismayna muxuu ahaa waxaa just one move waxaan dhan muxuu ahaa one move buu ahaa so hadda ma aamini karna marka intrigan koowaad ma aamini karna hadda sababa aamina ma hayno because this is the only low ah haysana laakiin haddii lower low cusub la helo maxaan leenahay waa la geli karaa waa very important qodobkaas marka iskuna daya inaad xisaabta ku darsataan maxay tahay sirta ku jirta marka waxaan hadda aan ka hadlayo suuqu markuu sidaan oo kale hadda higher kor u socdo waalidkiis soma actually keenan xolaan isticmaalo suuqan hadda markuu halkan joogay waxa la yiraahdo halkan suuqa markuu joogay waxa uu joogaa waxa la xisaabsanayo horta waa dhaqaaqan halkan markuu suuqu joogo waxa aynu xisaabsanayna dhan waa maxay dhaqaaqan baynu xisaabsanaynaa okay maxaynu xisaabsanaynaa this move ayaynu xisaabsanaynaa waxaynu leenahay movekan waa dhaqaaq isbedel qiime oo dhacay baynu dhihi karnaa oo waxaynu leenahay halkan laga soo bilaabo eurocad markay maraysay 1.538 ilaa waxaa la geeyey 1.5685 so that means in intaas oo jeer ay qaaliyoobaysa markasta kor u kacdo way qaaliyoobaysa it was getting expensive ilaa ay 296 jeer kor u kacday now qofkii had iyo ku rabo marka trade-kan inuu mar kale uu galo waxa uu ka fakerayaa qiimo raqiis ah rabaa inaan ka gato oo ninkii halkan ka gatay iyo meesha hadda maras haddaan ka gato isku mid miyay noqonaysa
waa may soo ma maxaa u baahan tahay marka inaa heshid discount qiimo dhac ama qiimo jab that is why aynu u akhrino counter trend higher lowgan xagga weli lama gaaro suuqan marka uu halkan gaaro meeshaas waxa weeye waa the highest place oo uu gaari karay for now because xogtan hadda inay live tahay baan kasoo qaadana so meeshii ugu sarreysay uu gaari karay buu gaaray soo ma waxaynu u baahan nahay I cannot buy from here why because it's too expensive habeenkii iida wey habeenkii iida dharkii iida waa qaali soo ma asbuuc koor baa la sii gataa dharkii iida ayandaad 5 bir iido ka dhimantaa soo gaartay dharkoo sii qaaliyoobaya 3 bir kadib markaad timaadid wallahi qaali waay 4 bir 2 bir marka iida ka dhimantaa shayga maba gadi kartid habeenkii iida hadaad tiraahdo dharka iida soo gadanaya ka war qaali way so maxaa la rabaa inaad sugtid in iida la dhaafo hadhow ayaama kadib sii kadatid ama bishon bilaaban soo maha haddaba waxa macnaha meesha ku jira waxa weeye this point waa very important ogaada marka trendi kor usii socdo haygan muhiim buu inoo yahay soo maha halkan muhiim bay inoo tahay ogaada maxay inagu rabnaa in lasoo laabto haddaba for a moment waxaan rabaa inaa iska ilowdid higher lowga waxaan rabaa inaa ogaatid meel kasta oo high ah suuqa high bay uga dhiganta marka trendiga laga yimaado hadda suuqan intuu halkan ka tegay halkaas tegay that point waa high point of the market way in halkaas la tago suuqa waxay ka tahay high keligeed marka laga hadlayo sabab ay high uga tahay because meel low ah baa laga yimi high baa nala tegay sax tan hadda maxay tahay keligeed tan waa low lower low maaha lower high maaha higher low waxaas dhan ma just waa low point why aan low point u siinay because kor baa laga yimi hoos baa la tegay mala socotaa meeshaan keligeed hadda waa high point in the market why ay high u tahay because hoostaana laga yimi highgaas la abuuray صح then كان حتى محي نقول كليين كان low point بين نقول because حاجة أنا لقيم كان محي نقول high point حاجة سالتي هذا بواحد ربعنا فهمتان هياش هاس اللو ياش هاس معنى يربا كوس جرا أو إن مر والبا لحيسين يا أما لصوب بندقوا قيمة عصوب وسوق يلقى قدن كره صالحا سوقان بلباق بسمي صما بلباق دو سمي أو ميلها يمي halkan waa new low way new lowgan inay hadda lowga ugu shidan mee horta intaan halka la abuurin lowga ugu shidan oo hadda qof kasta jeclaan lahaa inuu suuqan marka la ka gado waa kan way inuu halkan ku soo laabto waa fiicnaan lahayd taas waan mar walba idin dhaho suuqu markuu deep retracement sameeyo uu ka faa'iido badan yahay kan halkaas hadduu suuqu noogu soo noqon lahaa jan ay ahaan lahayd because xataa haddaanu kan jabin ilaa korkaas aan soo raaci lahayn because meesha ugu qaalisaneed abid u gaaray wataasa dan meesha ugu shidan waa halkaas meesha ugu liidatana waa meesha oo hadda marayo mar kasta oo meesha ugu liidato la marayo haddaad tiri halkaan ka baaygareynaya ka war haddaad tiri halkaan ka baaygareynaya oo aad tiraadid halkan baan ka helayaa baygayga ka war ma meel fiican ba waa may waa meeshii ugu xumayd meel xoogaa kasii ka ron waya haddaad tiraadid meeshaan ka gelayaa weli naf male iyaduna soo ma haddaad tiraadid meeshaan kana ka gelayaa weli naf male iyaduna kala barka waxaa loo yaqaanaa the fair price baa la ama qiimaha cadaaladda waa hoostii ugu fiicneyd iyo korkii ugu xumaa meelaha u dhaxayso kale marka trade cash waa fair point way dadkii hore dhaqaaqan u galayna way ka galaan waxaan ka hadlayno higher high maaha higher low maaha down trend maaha up trend maaha trend dan maaha waxaan ka hadlayna waxa weeye qisada ka dambaysa waxaan oo dhan macnaha waxaan oo dhan ku jira haddaba waxaa la ilaashadaa meeshaan meelo u eg inuu suuqa abuuro meeshaan meelo u eg inuu suuqa abuuro baa la ilaashadaa meeshaan maxay marka ku sifooday saynu u fahamno meeshaan meelaha u eg saynu u fahamno macnaha hadda the best point oo laga gadan kara waa kan soo ma meeshaan waxay ku sifooday janna gale haddaa u fiirsatid dhaqaaqii halkan ka bilowday inta uusan bilaaban ka hor suuqa yaa ugu qaalisanaa halkan ugu qaalisanayd soo ma meeshii ugu qaalisanayd buu ka kormariyay suuqa dhaqaaqa halkan ka soo bilowday because of that reason this is the best place oo laga geli kara suuqa waxaan raadinaynaa marka sifooyinkaas oo kale meel leh that's why aynu counter trend ku akhrino so suuqan markasta uu low point yimaado calaamadso hadda low point buu yimi soo maaha meeshaan oo kale calaamadso low pointigan inuu meel fiican oo meeshaan oo kale ah yahay waxaa lagu garanayaa inuu high ka sare maro okay hadda wax high ma haysano soo high cusub buu abuurmay high-ga uu ka kormari kari kaasoo hadduu kaa ka kormaro this is good point hadda hadduu kaas high-ga ka kormaro this is a good point because sifooyinkii tan ay lahayd maadaama high ka kormartay buu kana yeeshay soo maa haddii uu ka kormari waayo it is not that good so now low cusub baa samaysmay
lowgan cusub hal wax baan ka rabnaa inagu inuu sameeyo halka waxaan ka rabnaa maxaa weeye inuu hayga ka kormaro hadduu hayga ka kormaro waa iska ilaawanaa pointigan asaga ilaashanayna hayga la rabaa hadda haygii kore la maro waa kana la rabaa because what the reason to expensive point way meeshan hadduu kaaga kormaro we are good hadduu ka kormaro waa intuu meelahan yimaado uu hoostan tago lowgan xiisa nooma haya anaga hadda yaa xiisa inoo haya lowgan maxaan ka sugaynaa lowgan ma rabna xataa pointiga ka inuu aado kan keliya inuu ka kormaro baa rabna hadduu kan bes sida uga kormaro maxaynu leenahay meeshaan pointigaas ugu leeyihiin kanaa ka shidan why because meelihii ugu qaalisanaa ama haygii ugu dambeeyey oo ugu qaalisanaa suuqa ayay ka kormariyeen qolyahani so starting pointigooda oo meeshaan ah wuxuu inoo noqon karaa the next demand zone that is why demand zone-ka uu saddex rule u haysto rule number 1 muxuu ahaa icy candle halkaan u ka dhashaa rule number 2 muxuu ahaa big move-ka macnaha ku jira waxa weeye demand zone-kan dadka abuuraya waa waaweynkii qodobka saddexaad ugu muhiimsanna muxuu ahaa in korka ama supportiga ama resistance kaasoo horreeyana ka kormaraya the moment uu suuqu meeshan kusoo laabto maxaa halkan ku jira this will be the best buying place buu noqonaya awal xagee best buying place ahayd xaggan why because icy candle ba xaggan ku jiray big move baa ku xigtay opposition baa la jabiyey intii oo kale buu ku sifoobay not as good as this but it's like the best second waxa way the second best place to buy way from here arrintaa muhiim bay inoo tahay kulligiina ogaada hadda kadib marka aad meel demand zone ka dhiganaysid macnaha rasmiga ah ee demand zone-ka ka dambeeya ma aha xariiq suuqa la iska dhex dhigay ma aha rectangle meel la iskaga sawiray ma aha there is a big secret behind it waxaynu raadinaynaa a low point of the market that we can buy from meel hoose oo suuqa ah oo aynu fursad baaya ka heli karna ayaa la raadinaya taas oo wax kale meesha ma yaalaan marka uu sal yahayna waa oppositekiisa oo markuu suuqu uu yahay downtrend maxaynu raadinaynaa mar kasta shaygan meel qaali uu noqdo ayaan raadinaynaa okay hadda markuu sidaan yahay the best place to sell halkan way hadda sooma why because meeshaan lower low ahayd iyo meeshaas oo ahayd lower high ka horreeyey lower lowgan ayay ka hoos mariyeen suuqa meeshii ugu raqiisneed oo suuqa waa kana la geyn karay meel kasii raqiisan bay geeyeen so now haddaan rabo suuqa inaan selgareeyo de meeshaan waa very cheap place maxaan raadinayaa marka albaabkan oo kale inuu meelaha ka abuurma ayaan raadinaya see ku ogaan karnaa sifooyinkii laga rabi waa inuu sameeyo suuqu waa inuu sameeyo high point kadib high pointigaan ma ka selgarayn karnaa ma ogin inaan ka selgarayn karno ilaa waxa la yidhaahdo uu low point jabiyo so low pointiga laga rabi inuu jabiyo kee waya hadduu kan jabiyo marka lagu soo laabto waa ka selgarayn karnaa hadduu jabin waayo kaas maxaan sugaynaa low kaloo ka duwan inuu jabiyo okay uu jabin waayo kaas hadhaano waa laga soo koromna high ka sarreeya baa yimid hadda haygana wuxuu yahay the best selling place oo ma marka meesha laga yimaado best selling place wuxuu u confirm garoobayaa haddii lowgii suuqa la gaarsiin lahaa low ka hooseeya hadday gaarsiiyaan waxaa leeyahay groupka halkan suuqa ka salgareeyey they have a big waxa la yidhaahdo supply area aan ka geli karno the moment suuqa halka kusoo laabto maxaa leedahay I'm gonna take the trade from here why because dhaqaaqa halka suuqa ka kaxeeyey the cheapest price-kii suuqa la geyn karay meel ka cusub bay geeyey so this is the second best place oo laga salgarayn karo marka halkaan laga yimaado qodobkaa ma ila fahamteen inta aan ka gudbin markaan su-aalaha idiin furo baa su-aalahaaga ay weydiin doontaa sida ula soco marka janka that was tan xataa meesha inay soo gasho qalad weeye because waxba kama jiraan we have euro jpy waa idiin sheegay euro jpy qisadeeda waa ka hadalnay ka baxdha meesha USD card waa idiin sheegay qisadeeda waa ka hadalnaa iyadana maxaa soo haray euro chf actually trade qurux badan buu ahaa waa sugaynay just inuu ku laabto korkeeni asagana waa ay dhici weyday nothing happened euro card baan jooga actually iyada ku dulsa sameeyay euro card waxaan arkayay meeshaan in liquidity inoo noqotay halkanna inuu ku beegan yahay a big supply zone area okay بس ما دام liquidity la jabiyay we needed in higher low laqno like this one kadib marka kan la jabiyo oo uu noogu laabto korkaas maybe fursad sare inaan haysano so ishaan ku hayn doonaa euro kada dii wax kale aan waayo it could be a trade for us to watch laakiin ayada iyo waxaan isku bandhigi doonaa euro AUD maybe inta euro AUD intriga inoo socota in euro kadna ay intriga abuuri doonto guys
macluumaadka aan hayay aniga intaas weeye trade kale oo ii diyaara ma jiraan qof baa maanta oo dhan wuxuu weydiinayaa CHFJPY ma trade cusub baa ka abuurmay channel kale let me check for you CHFJPY kamaba aana fakerin maadaama uu horay trade hore loogaga furnaa alright let's go weli ma hayna lower looma hayno so in the middle of the market bay joogtaa sababaan u galno CHFJPY ima muuqato qof kale wuxuu weydiinayaa GBP CAD sidoo kale trendiga ayaa muran ku jira hadduusan trendiga cadayna sabab loo gala meesha ma taalo okay suuqan up trend buu ku socday higher low waa kana dhaqaaqa koowaad ba abuurmay weli wax lower ma hayna so it's in the middle of nowhere bay joogtaa gold nin kale ay weydiinaya gold lacagahaas dollarka buu la qisaya there's nothing going on with gold okay guys believe me markay aragtaan ano AUDJPY CHFJPY kaliya trade ka raadinaya that means trade kala suuqa ma yaalo GBP NCD CAD ma trade garayna channel gale so don't ask me NCD CAD because kama mid aha lacagaha ay institutional traders ku focus ka badan siiyaan sidaas daraadeed there's no point in isku wareerisid waxa ka dhacaya GBP AUD okay GBP waxaan ka wadaa dawas waxay ahayd NCD CAD GBP AUD and nothing's happening not a thing we don't have the trend which is the first step of everything halkan higher low gana la jabiyay then liquidity halkan had liquidity la jabiyay suuqu soo laabtay is not giving us a reason why to take the trade because dhaqaaqan haduu trendiga dhameystiray we need the first wax la yiraahdo in lower low so that we can take a trade okay qof kale wuxuu weydiinayaa euro GBP nothing is happening channel nothing is happening because suuqan waa suuq wareersan runtii sababtuna waxay tahay halkan suuqu up trend buu ku socday down trend ki dhaqaaqana fatuuday kadib down trend ba all of a sudden iska bilowday so down trend kan cusub waan la socday oo dabagal baan ku hayay now liquidity gana la cunay sidaan arkayno of course lacagtan qorshaha waa ku darsan karnaa euro GBP because shalay bay noo diyaarsanayd meesha la jabinayo oo rasmiga ah rabna hadda tan weeye It's right here. So haddii kan la jabiyo lagu laabto then maybe yeah shalay dad baa waxay igu khasbayeen suuqan dhalinyarada ka mid ah oo ii soo dardiraysay meeshaan inay tahay high tan low tahay kadibna kan la jabiyo anna waxaan ku yiri lama jabin kaas nimayaas wareerinina sabab suuqa on gashaana meesha ma taalo so iyagu weegan bay waxay ka dhigayeen inuu lowan jabiyay meeshaan lownimadeeda shaka ku jiray markeeda hore hadii low rasmiya weekana low rasmiya asagana jabiyaan rabna af Soomaali ku hadal ninka ugu qoran tahay Habib Hunter because inaan ku fahmaan rabaa channel gala sometimes the pullback in 4 hours is so small I doubt if I can consider what do you mean pullback to macna ma sameynaysa kaligeed waxa la rabo waxa weeye inay counter trend noqoto what do you mean pullback to way yartahay ma consider kara macna waxa ka wada high low ahaan kama dhigan kara miyaa ka wada haddaad af Soomaali fahmayn oo dhalinyarada qurbaha tahay waa meesheeda laakiin af Soomaali fahmaysid oo qof Soomaali oo af Ingiriis ka dhigis ku hadlaya tahay soo caday meesha insha Allah okay and pullback haddii aad ka wadid markuu high saaraha pullback tan haddii aad u yar tahay hadda waxaan sharaxayo dhan wayde you need a good price low fiican in la tago waye lowgaas waa inuu high jabiyo kaasoo kala kadib waa qaadan kartaa meeshaan ase trade فيديو دي موضوع عدن أدا فهم دونا channel أنا جروبا وحن قبلنا سؤال about fundamental وحن رجعنا نيوزكا لقى عبر قاتل على بيش هذا إن كلا بركة بيش أي صباحان سيدا نيوزكا مانت ريتيل سيل أوكي سؤال شتى وكلا برنتا غيبت كلام هذا مستر ديق أوكي السؤال بان قبا حداد إيجاد جواب السماء سند محيط سؤال شهادو haddii DXY ay sal aado miyay euro gold awood yeelanaysaa labo haddii gold awood yeelato miyay AUD awood yeelanaysaa liimeen saddex maalin dhawaad waxaad soo dirtay DXY anagoo DXY leaders AUD JPY DXY shaqo kuma leh channel DXY waa dollarka kaliya haddii dahabka agalas euro goldna DXY shaqo kuma leh euro iyo gold aqsadooda ina raadsid bay noqonaysaa DXY gold waxba kama gelin DXY waa lacagta dollarka ayay ka hadashaa AUD JPY أنا شغال كمله يورو جولد أنا شغال كمله. Okay, very good question. موليد موسى. Ustad last channel of indication مركا
lagu laabto time frame kee intriga ku qaadanaa inta anigu 15 minute baan ku qaataa laakiin trade-yada qaar ma soo gaaro 1 hour 2 hour 3 hour ku qaada channel kale 15 minutes is too small, it's too little to believe. USDJ boy trendy bay dhamaysay trendy kalena ma bilaabin channel kale waa ka hadlay. Please don't ask me the same question over and over and over. USDJ boy waa initially waxaan ku iraaday don't trendy baa la dhameeyay welina wax qisaayo kala kama hayo. So there is nothing happening. You need to trust the process. When there is nothing happening, just chill. Focus on other stuff. Ninki su-aashiisi waa tanaada sii socota wuxuu dhahay marka fundamentalka ku wax saameeya haddii asbuuca koowaad bisha aysan soo wada bixin lacagaha bisha sidee go-aan looga qaataa midda lala jirsanaya waxaan kaa codsanayaa inaad fiidiyoga nooga soo samaysid insha allah channel kale. Laakiin waa su-aal aad u fudud hadda soo 15 bisha ma joogno xogta soo socota inta ka soo baxaysa xogta hore wax ku qiimeynaysaa simple as that. hadda 17 bisha xogta haysatid weeye xogta rasmiga haddii 18 bisha xog cusub soo baxdo xogta cusub baa xogta rasmiga ahayd. So kuwa bisha koodeeda xogta soo baxdo bisha koodeeda qaado, kuwa bisha labadeeda soo baxdo bisha labadeeda qaado, kuwa bisha 17 soo baxdo marka qaado. Every day baa trader time. Guys, su'aalaha ugu badan yihiin waa soo gabagabeynayaa webinarka. I hope inaad ka faa'iideyn kolkan inta ka hartay sanadka waa wadana webinaaradeena ilaa dhammaantiin aad cagiin isku tagaysaan dadaalka wadayna waa idin sheegay dhalinyarada aan weli igala socon Instagram-ka iga soo qabta halkaas ay fudud oo aan feedkii markaan keligay ahay firfiriya trade-yada waxaas oo dhan haddii trade jiro ana arki lahaa soo nadiri lahaa suuqa waa baarnay anigii dhalinyarada oo dhan wax trade ahna nooma muuqdaan euro AUD marka laga reebo haddii trade ah helna waa helnay haddii aan weynna trade ma jiro. So insha Allah inta aynu isniinta dambe ama talaadada dambe insha Allah waxaan ku kulmi doonaa webinarkan oo kale dhammaantiin waxaan leeyahay jannada Allah idin geeyo. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.